الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالية، وزيرة حكومة فدرالك الصومالية، xildhibaanada labada gole, saraakiisha ciidamada asluubta, saraakiishii hore ciidamada asluubta dhammaan, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo ku-xigeenkiisa iyo marti sharafta oo beesha caalamka nagala soo qayb gashay iyo ciidanka qalabka sida guud ahaan waa salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxaan u hambaliyeynayaa ciidamada asluubta sanad guuridii kontonaad. Waxaan leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo. Ra'iisul wasaare, anagoo qaadanayna tilmaamahaada iyo tusaalahaada, ciidamada asluubta waxaa ku socda dib u habayn iyo dib u dhis kaas oo aad u ballaaran, ha ahaato xagga aqoonta, ha ahaato xagga ilaalinta maxaabiista, ha ahaato xagga dhismayaasha xabsiyaal waaweyn dalkeen in laga dhiso, ha ahaato in lagu tababaro anshaxa wanaag, daahfurnaan iyo shaqo wanaag. run ahaantii tilmaamahaas aad bixisay wax weyn ka hirgalay sidaad had u jeedaba, waana wadi doonaa. ciidamada asluubta iyo taliyaashoodan waa uga hambalyeynaya tilmaamahaas ay qaateen. anigana habeenii maalin waan u taaganahay inaan horumarino. maanta maadaama aad nagu sharaftay xafladdan, waxaan sugaynaa tilmaamahaada iyo tusaalahaada iyo himilooyinka aan rabno inaan gaarno. marka khudbada inta ugu ballaaran adaa yeelan doonta insha Allah. anigu waa isku noqonaynaa ciidamada xaflad kaleed inaan ma aragtay aan arrimaha noo dhamman iyo arrimahan higsiga aan ugu wada hadalno. haddana waxaan ku soo dhaweynayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya.